ay ku degan yihiin oo maanta ay sababtiina u joogaan oo bacdallaahi idinka iyo wax fadligiina ku yimaado ama raashin saacadaha la helo ama waxa lala qabta ay idin tahay waxaad ku faani kartaan waayo waa dadkiinnii oo dhibbanaa oo rafaadsanaa oo maanta idinku aad u gargaaraysaan ood kolay biyo siisaan iyo maraad raashinkiina wax ka siisaan iyo maraad gurmad kale u dirtaan oo qayladhaan wax la idinku keeno aad baan idinkaga mahad celinaya waa laba wiil kay ka soo cararayaan ee manaxaha ah ee xoolahooda dhacaya dhiiggooda bannaystay iyo kan ay u soo cararayaan ee iyaga ka naxaya ee xoolahooda badbaadinaya ee naftooda badbaadinaya ee wuxuu u heli kara siinaya wax yacni laba qofoo dhalinyaro oo Soomaali oo u siman laakiin waad garanaysaan fahmiga khaldan baa wuxuu kaa gaarsiiyey inuu dhaca iyo boobka iyo dilkooda iyo xoolahooda inuu qaato inay u tahay guul iyo waxtar inay u tahay insha allahu cirku hadda waa lagu jiraa kolley roob baan rajaynaynaa waxaanan rajaynaynaa dadka shacabkaana inaan berri raashin loo keeno haddii ilaahay yidhaahdo ama beri daba midkood oo iyagana bar raashin kale hadda lasoo gaarsiiya dhowr goor horena waan siinay idinka ciidan ahaanana waan idinkuna mahad celinaya waan idinku ammaanantihiin adkaysiga meeshaa baadiyaha cidlada ah aad dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina idinkoo difaacaya ku adkaysanaysaan waxaanan rajaynayaa in wax badanna ay ka soo hagaagi doonaan isbeddel badanna uu jiri doono haddii hadda ciidamadan koorsooyinka ku jira ay ka baxaan ama gaadiidka iyo waxaan aan diyaarsanana waxaan isku dayaynaa insha allahu inaan howlgal gallo oo fadhiga badan aanaan wax badan ka sugin insha allah.